aadan keynan oo ah xildhibaanka deegaanka Eldas ayaa qaaday tallaabo hogaamineed oo go'aan adag ku dhisan taas oo taariikhda ka dhigaysa mid lagu xasuusan doono. Tani waxay ka dambeysay kadib markii howlgalkii qaybinta cuntada ee xarunta CDF-ta Eldas ay si hufan oo qorshaysan u dhacday, waxaana gargaar la gaarsiiyey in ka badan 2,000 oo qoys oo ay abaartu si daran u saameysay, kuwaas oo ku sugnaa xaalad nololeed oo aad u liidata. Tani ma ahayn gargaar caadi ah, balse waxay ahayd tallaabo istiraatiiji ah oo la taaban karo xilli qoysas badan ay la tacaalayaan gaajo, biyo yaraan iyo burburka nolosha xoolo dhaqatada. Gargaarkan bini'aadanimo ee ka yimid xafiiska CDF-ta ee Eldas ayaa ka koobnaa cuntooyinka lagama maarmaanka ah oo si taxaddar iyo xushmad leh loogu qaybiyey qoysaska nugul, si loo yareeyo gaajada ba'an loona soo celiyo sharafta. Tani waa tallaabo loogu talagalay in lagu yareeyo xaaladda abaaraha, waxayna caddeyn u tahay go'aanka hogaamineed iyo ficilka dhabta ah ee aadan keynan oo uu ka qaatay ilaalinta nolosha dadka abaaruhu ay saameeyeen. Muuqaalkan wuxuu soo bandhigayaa dadaalka muuqda ee xildhibaanka, kaas oo xaqiijinaya in qoys kasta oo nugul uu helo cuntada uu u baahan yahay. Wuxuu ugu baaqay dowladda dhexe in musiibo qaran ay ku tilmaamto abaaraha si loo furo taageero ballaaran oo isku dubaridan. What are we asking the government to do? We're asking the government, first of all, to declare drought a national disaster. Because this is the only way now donors can come in. This is the only way, again, other humanitarian agencies actually can come in. And this will enable the government actually to even appeal for help to the international community. Tallaabadan aadan keynan waxay caddeyn u tahay hogaamintiisa dhabta ah, go'aankiisa adag iyo ka go'naanshihiisa inuu garab istaago dadka ay abaaruhu saameeyeen. Wuxuu mar kale muujiyey in hal qoys oo Kenyaan ah aan la dayicin meel kasta oo uu ku nool yahay, iyadoo la ilaalinayo nolosha, xoolaha iyo mustaqbalka cunto ee dadka gobolka Waqooyi Bari iyo guud ahaan deegaanada xoolo dhaqatada.